wadada jannada loo maro waa jid dheer, taasina waa qaacida aasaasi ah, balse waxaa jira qaacidada wax laga soo reebay. waxaana suuragal ah in qofku uu jannada ku galo hal camal oo weyn, kaasoo u dhoweynaya Ilaahay subxaana wa tacaala sida ku dhacday saxaabigan Alle ka raali noqdee. qisaduna waxay u dhacday sida tan: kadib markii nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam lala soo diray diinta Islaamka ee uu diinta ugu yeedhay qabiilooyinka Carabta, ayaa saxaabigii weynaa ee Sacad bin Mucaadil ayaa ka raali noqday uu soo islaamay. waxaa iyaguna sidoo kale soo islaamay tolkiisii marka laga reebo hal nin, kaasoo lagu naanaysi jiray al-Usayrim, waana Camr bin Thaabit oo ka soo jeeday reer Aws. wuxuuna ahaa Camr bin Thaabit mid diiday diinta Islaamka kadib markii ay qoomkiisii islaameen, dhegna jaraq uma siin baaqooda iyo dacwadooda. hase ahaatee wuxuu ahaa mid ku yidhaahda: haddaan ogaan lahaa xaqiiqada waxaad sheegaysaan run ahaantii kaman daaheen oo kama habsaameen. inkastoo uu diinta Islaamka diiday, haddana hadalladiisu waxay ahaayeen qaar tilmaamaya inuu ahaa mid raadinaya xaqa iyo xaqiijintiisa ama sugiddiisaba. waxa uu dhegaysan jiray hadalladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ilaa uu qalbigiisii ka dabcay oo uu Ilaahay laabtiisii u furay Islaamka. markii uu islaamayna waxay rasuulka iyo saxaabadu ahaayeen qaar u soo baxay dagaalkii Uxud, wuuna ka daba yimi, wuuna ka barbar dagaalamay ilaa uu dhaawacmay dhulkana uu ku dhacay. markay saxaabadii arkeenna waxay isku yidhaahdeen: kani waa Usayrim, wuxuuna ahaa mushrik ee maxaa keenay halkan? waynuna ka nimi, wuxuuna ahaa mid aan diinta rumaysnayne. wayna u soo dhowaadeen, waxayna ku yidhaahdeen: maxaa ku keenay? ma qoomkaaga ayaad u argoynaysaa, mise waa jacaylka iyo rabitaanka aad u qabto Islaamka? wuxuuna yidhi: Ilaahay ka raali noqdee, maya, waxaan ahay mid jecel oo raba Islaamka, waxaana rumeeyey Ilaahay iyo rasuulkiisa, waxaana la dagaalamay rasuulka maciisa ilaa waxaad arkaysaan igu dhaceen. isla daqiiqadii ayaanay naftu ka baxday. hadalkiisii ugu dambeeyey ee uu yidhina wuxuu ahaa inuu u dagaalamay jidka Ilaahay. waxaana arrinkii loo sheegay rasuulkii, wuxuuna yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam: waa ahlu janno. wuxuuna ilbidhiqsi qudha ka soo baxay xeradii gaalnimada iyo shirkiga, wuxuuna u wareegay dhanka iimaanka iyo ikhlaaska, wuxuuna ku shahiiday jihaadkii, wuxuuna sidaa ku galay jannada. taariikhdiisa Islaamkuna kama badnayn nus maalin ama maalin aan dhammaystirnayn. wuxuuna Abu Hurayra yidhi: Usayrim weligii uma tukan Ilaahay salaad. wuxuuna Abu Hurayra ahaa mid dadka weydiiya ka uu ahaa ninka isagoo aan weligii u sujuudin Ilaahay jannada galay. wuxuuna ahaa mid ugu jawaaba markay garan waayaan Camr bin Thaabit. waxaana qisadiisa lagu soo wariyey kutubta siirada. taasina waxay ahayd qisadii saxaabigii weynaa ee Camr bin Thaabit, Ilaahay ka raali noqdee.